qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada Galaadi oo adeeg bixin u soo doontay xarunta caafimaadka ee degmadaasi ayaa xusay in shaqaalaha ka howlgala xirfadlayaasha caafimaadka dadku in ay ugu shaqeeyaan bulshada qaabkii loogu talagalay serviceka isbitaalka iyo arrimihiisa bukaanada ma sha Allah aad bay u wanaagsan tahay service wanaagsan baa ka jira cid kasta qaybta emergency-ga dhakhtarka kalkaaliyayaasha caafimaadka nooc kasta ay tahay ma sha Allah si fiican bay shaqadu u soo degmada Galaadi adeeg bixinta waa ku qanacsanahay caafimaadku ma sha Allah anigu maanta waxaan ahay shakhsi muwaadina oo u dhashay degmada Galaadi shil rabaani ah gaaray shilkaas waad joogteen hadda service-kii la ii sameeyay caafimaad goob joog baad ka ahaydeen sidii uu u dhacay alxamdulillah ilaahayna waxaan ka rajaynayaa caafimaad inuu isiiyo waanan helay adeegii shakhsi oo aan u baahnaa degmada Galaadi qabal afraad baan walaalaha way mahadsan yihiin shaqaalaha Galaadi way mahadsan yihiin tabaala badan iyo tabasho badan way jiraan horta way mahadsan yihiin wayna u adeegaan laakiin mar kasta waxa laga cabanaya dawada way go'an tahay baa la leeyahay xagga dawada aad looga cabanaya markaan u nimad waxaan ku noolahay dhibigan magaalada Galaadi wixii aan hadda waxba tabanaa laakiin sida qaalibka waan loo adeegaa waxaan u imid caafimaad dawaan doonay ilmaha yar anigu waxaan xanuunsan dawadii waa hel horta caafimaadka degmada Galaadi waa fiican waana la baar dawadii waa nilsi bila jaamac anigoo ah bila jaamac cali oo ka imid tuulooyinka ka tirsan degmada Galaadi ee Doofaarqod xarunta caafimaadku aad iyo aad bay u fiican yihiin waana la soo dhaweeyay waana la daaweeyay shaqada aad bay u hayaan waa mahadsan yihiin adeeggu si wanaagsan oo fiican bay u bixinayaan iyadoo ku qanacsan yahay dadweynuhu waana kuwa qaar ka mid ah xirfadlayaasha caafimaadka dadka ee ka howlgala xarunta caafimaadka ee degmada Galaadi oo dhankooda ka warbixinaya adeeg bixinta ay siiyaan bulshada waxay siisaa waxa ka mid ah marka ugu horeysa hooyadu ay uurka yeelato waxay la soo xiriirtaa MCH-ka anaguna waxaan siinaa xanaanada hooyada ay u baahan tahay isla markaa iyo waqti ahaantaas tusaale ahaan waxa xanaanada u baahan tahay waxa ka mid ah hooyada marka koowaad waxa ka cabiraysaa oo xanaanada uga bilaabeysa in hooyada la socotid BB-geeda aad ka cabirtid haddii talaalka oo kale aad siisid first visit-ka ku soo booqato una sheegtid in xarunta ku xirnaato markastana ay timaado ilaa inta ay ka dhalayso way jiraan dad ku xiran annaguna waxaan siinaa wacyigelin iyo markasta in hooyinku ku xirmaan health center-ka waxaan ka shaqeynaa waa IBA-ga routiinka talaalka meesha qaybta uu ka baxo weeyaan joogtada ah waxaan siinaa ciyaalka dhalaanka iyo hooyooyinka uurka leh si functional ayna u qaataan haddii aan ku sheegana xilliga ay kala qaataan talaalka BCG-ga kan ka hortagga TB-da waxaan siinaa maalinka Khamiista inta kale tan si functional u wada siinaa hooyooyinka uurka leh ama pregnant-ga waxa weeyaan iyagana waan siinaa alxamdulillah wayna qaataan TT-ga waa teetanada ka hortagga teetanada hooyooyinka waan siinaa iyagana marka sidaas anagu waaxdan anagu shaqeeyaa shaqadeeduna saas weeyaan ana baxshaa hooyada koow waxaan ka wacyigelinaa in ay horta talaalka ku xirnaato oo si joogta ilmaha oo u siiso labo in aysan iska tuurin maxaan ku raahdaa kaarka ilmaha saddex inay waqtiga ilaaliso oo xilliga aan siino brief macni waqtiga aan dhahnay imaw inay timaado haddii lacala ay kadib dhacdo waan koolinaa ama waan wacnaa hooyadaas si aysan ilmahaas marnaba aysan ugu dhicinin wax kala go'a talaalkiisa maareeyaha xarunta caafimaadka ee degmada Galaadi mudane Maxamed Yaxye Cali ayaa ka warbixinaya guud ahaanba xarunta caafimaadka ee degmadaasi adeeg bixinada kala duwan ee ay siisa bulshada xarunta caafimaadka degmada Galaadi waxay u adeegtaa bulshada Galaadi iyo nawaaxigeeda degan waxay ka kooban tahay departmentyo badan waaxda ugu horeysa waa waaxda talaalka way shaqeysaa waaxda nutritionka nafaqadarrada way shaqeysaa waaxda MCH-ka hooyada iyo dhalaanka sidoo kale way shaqeysaa waaxda shaybaarka way shaqeysaa waaxda OPD-ga ama bukaan socodka oo 5 sano ilmaha ka yar iyo dadka waaweyn way shaqeeyaan iyo waaxda dispensary-ga oo dawo bixinta ugu dambeyn iyo waaxda
kaardi unit-ka la yiraahdo oo MRU-ga kaardi unit-ka dhammaan waaxaas way wada shaqeeyeen xaruntu 24 hours way shaqeysaa 24 saac way shaqeysaa xirfadlayaasha ka howlgala dhammaan waa 16 xirfadle departmentiyada kala duwan bay ku qoran yihiin duutigii bay galaan 24 hours cidla ma ahata meeshan haddii 9 saac habeenimo hooyo soo furato adeegii way ka helaysaa waaxahaas uu kala qoran shaqaaluhu waxaa jira duuti ay shaqaaluhu galaan qof kasta bishii marka beer hawar wuxuu u shaqeysto baa loo siiyaa duutiga heer deegaanba kor baa looga soo diraa degmada bixisa dhammaan adeeg bixinteena hadaan kaaga warano bulshada aad bay ugu xiran tahay degmada xarunta caafimaadka degmada Galaadi aad bay ugu xiran tahay adeegii loogu baahnaana way siisaa challenge-yo way jiraan sometimes dawooyinka oo go'an ama soo daaha sida hadda bilihii ugu dambeysay oo dhan gobolka Dowladka way jirtaa laakiin adeegyada loogu baahnaa dhammaan waan wada bixinaa degmada Galaadi oo kamid ah degmooyinka gobolka Doolo waxaa ka jira in ka badan 17 rugo iyo 3 xarumo caafimaad kuwaas oo adeeg bixin siiya bulshooyinka ku kala dhaqan tuulooyinka tuulo hoosadada maamul ahaan hoos yimaada degmada Galaadi ee gobolka Doolo Maxamed Cabdi Ali Maxamed Garbo oo kala duwan warbaahinta deegaanka Soomaalida degmada Galaadi gobolka Doolo